dareenka iyo waxa uu qabo Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar oo isagu ah hogaamiye dhaqan oo isagu samaystay ciidan iyo dhaqdhaqaaq uu kaga soo horjeedo jiritaanka Somaliland ku dhawaaqay sanadkii 2014 danku isagoo su'aalaha si badan ee TV-gu weydiinaya ka jawaabaya qaar kamid ah waxa la oran jiray dhaqanka Soomaalida ciidii saluuganta waa loo sadburiya saluuga kaygii focus kaba lama saarin oo aad iyo aad u badnaa anoo xitaa waxa laga yaabaa inaan iska ogolaan lahaa markii ugu horeysay hadii wuxuun maaragtay la naga tala qaado naga aqbala cabashada laakiin waxa lagu degdegay 3,000 military markiiba la daba ka dhigay halkaas la soo tubay ilaa la ilaa magaalada quljeedka ilaa magaalada Buuro hareeraheed waxay yiraahdeen nimanka maamulku markaa nimanka Jibriil Yoonas la yiraahdo haddaydan 24 saac suldaankii ku soo qabanin oo noogu soo dhiibin andile annaka soo garba duubanayna sidii daayirayaal ka hayn loo oran jiray meesha annaga laho waad noo shaqaynaysaa maalintan doonana dhingad baan kaaga soo saareen wasiir Maxamed Kaahin ayaa afkiisa ka oran jiray tabadan dhinaca kale suldaanku waxa uu ka dareen celiyay arrimo badan oo iyagu inta badan hadalhayntooda ay ka taagan tahay Boorama Somaliland iyo guud ahaanba aragtida uu ka qabo isagu hawlgallada kala duwan ee hubaysan ee uu kaga soo horjeedo Somaliland waad aad u qurux badan ma taawhaya oo waliba soo waayay aragtay oo soo waayay tirsatay baan u hayaa ma burburina horta number 1 anku magaalada Boorama oo la burburiyo anigu ma jeceli laakiin ilaa fara badan baa jirta keentay maalintan u dambeysay in Boorama la galana waxay dadkan uu seexday haade dadkan dubaab baa hayste bal dubaabka alaga sanqeeyaan horta lahayn waan arkaysa maalin qora weey wadayaa toosan imikana wali waan ag joognaa waa dhawrayna haadana marka in taageero laga helo say xoroobaan isku xoreeyaan waa number 1 magacaad Somaliland aad leedahay colaad xun baa ka jirta dig baa ka daata waxa ugu yaroon Hargeysa ayay Boorama ugu yaroon korkaad sida ay leedahay adigoo wariya aad iyo aad baan uga xumahay tasool ka daadanaysa deerigaaba ka daadanaysa wadadkeennii waxaana waxa keenaya dawlad xumo maamul xumo cadaalad xumo keenaysa dirigtii u dambeysay meeshan la isku duldumayay ayay Hargeysa ku socotaa maamulkeedu mana aha mid si shaqaynaya waxaan uu si shaqaynayn inta soo jarbu Muuse Bixi Cabdi yiri Hargeysa la igu talin maayo ninaan ku tumo nin iga taga ninaan ugu taliyo dadku noqon buu yaan wasaaradaha wasaarad la yiraahdo reer hebel baale maxay ku raadata lacagta financial reer hebel baale reer hebel buu wasiir ka shaqaaleeyaa lacagtana iyo kaale military-gana reer hebel baale reer hebel la iyo kuun baa laga shaqaalay meesha military-ga xoogiisana ku amar ku taaglay booliska reer hebel baale waxyaabaha diidanta dawlad lama sheegi karo dawlad lagu ma sheegi karo mar hadii wasaaradaha hebel leeyihiin Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar hadii maanta dawladda madaxweyne Muuse Bixi Cabdi adiga ay ku soo bandhigtay heshiis waxaad ka cabanayso dhan inay saxayso ma ka soo hooyanaysaa Boorama ku soo noqonaysaa adigoo suldaankii horta waxa weeyaan dawladda ama maamulka Muuse Bixi Cabdi ma aaminsana anigu inuu joogo heer la aaminayo una waxna bedeli karo dadna uu soo keeni karo reerkiisiba kala dareeraya carab meel fadhiya meel jafada kala fadhiya oo qabiil isku haysta wixii uu ka doodi ka hadli jiray ninkii la oran jiray Cabdullaahi Suldaan Timcadle 60kii uu ka gabyay oo dhibaatada uu ka calaacali jiray ee qabyaaladeedba marka inay Hargeysaba lafteedu oo Muuse Bixi Cabdi kala dareeriyo ayuu qarka u saaray marka anigu nin Muuse Bixi kar sugaya inuu wax bedelo iyo in anigu iisad korriyay horta ma yihi isagii baan hayninba aad baa dhulka hawdka loogu dhintaa ilaa Burco ilaa Cirgaabo dadka hal badbaadiyo Muuse haduu bal wuxuu tari karay heerade talo farihiisa way ka hadayay xaga ka bilaabo horta adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida